dhalinyarada la yiraahdo xidigaha oo aad u yar deeqooda u dhashay shaqada dambeeyay maanta laba hal qabsi bay aniga ii dhiibeen oo lamida Putin cadiya ay dhiibayeen odayaasha gabeesha waxay lagu yiraahdeen ninkii waxa weeysanay hoggaanka dalko hankaal hanaafo way loo guddoon Somaliland soo inoo guddoon ma ahataas odayaashana waa joogaan waxay yiraahdeen bulshooyinku keenay dhisana ninka dhibayso ee cidada ka dhurmow leeyahay batu kursi dagaye dagaa ugu ridaa demidkeen ina naga qashteen iyo ka qashna garan maaye barnaamijka xisbiga kulmiye siyaasaddiisa arrimaha gudaha beedka hore ayay ku salaysan tahay siyaasaddiisa arrimaha gudaha beedka dambe dadnimada watay ayuu ku soo dhigay dagaha ugu rida inay dhacay labada safiro laga fadhiyana beedkaas aanu sheegaynaa waa siyaasadda arrimaha gudaha tanasoo fadhiya
iskada manton disanahay manton disanahay manton disanahay manton disanahay manton disanahay madeli side kayga daan dhaqaala helana ibkuma oo madhawa masine samaadka dhaxyeeriyada iskada baan ku dhaqmaa taariikh dhigano baan ku dhaqmaa taariikh dhigano daydii xornimaa nabada ku dhamaa 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 dulkeena bulshooyinaan dhisanaa ninkay dhibayse cilada ka dhurma ninkay dhibayse cilada ka dhurma midnimadii maabtuu ku sii dheganye daagaha ugrida inaana dhacayn dhagaha ugu rida ugu rida ugu rida dhagaha ugu rida inaana dhacayn daagaha ugrida inaana dhacayn dhagaha ugu rida ugu rida ugu rida dhagaha ugrida inaana dhacayn dulkeena bulshooyinaan dhisanaa ninkay dhibayse cilada ka dhurma ninkay dhibayse cilada ka dhurma midnimadii maabtuu ku sii dheganye
xilliyada taxana ka dhigeen tallaabada qaaday baa toostee bulshoy toosteen waqtiga tegay baa xusuuska tago tirsiga xilliyada taxana ka dhigeen tallaabada qaaday baa toostee bulshoy toosteen takoorkii eexda xumaha tuuro cadliga isu taaga oo taamka dhigo tariibtiya reeb tacliin li'ido taageera danguud waxbaad ku taheen taageera danguud waxbaad ku tee takoorkii eexda xumaha tuuro cadliga isu taaga oo taamka dhigo tariibtiya reeb tacliin li'ido taageera danguud waxbaad ku taheen taageera danguud waxbaad ku tee dadkii tabcada tisqaadi karee dadkii tabcada tisqaadi karee talada rabbigeen tawfiiq ku laro tilmaansada guusha way timideen dadkii tabcada tisqaadi karee dadkii tabcada tisqaadi karee talada rabbigeen tawfiiq ku laro tilmaansada guusha way timideen dadkii tabcada tisqaadi karee talada rabbigeen tawfiiq ku laro tilmaansada guusha way timideen dadkii tabcada tisqaadi karee dadkii tabcada tisqaadi karee talada rabbigeen tawfiiq ku laro tilmaansada guusha way timideen ardaydii ka fadhayda fursad kale u tawa ardayda maanta qalin jabinaysaa waxay isugu jirtaa labada kalbas ee wajaale iyo gebri kamas ay jaamacaddu ku leedahay wajaale waa markii ugu horreysay ee arday digriya oo 4 sano soo dhammaysatay ay kaga soo baxdo kamaska wajaale waa markii ugu horreysay laba qaybood oo digriya waxaa maanta qalin jabinaya 9 kulliyadood oo 9ka kulliyadood laba ka mid yihiin ay markii ugu horreysay yihiin kulliyadda midwiferyga oo digriya iyo kulliyadda medical laboratory labadaasoo digriya waa markii ugu horreysay ee jaamacadda timcadda ka qalin jabiyaan kamaska wajaalana waa markii ugu horreysay oo arday 4 sano oo soo dhammaysatay ay ka qalin jabiyaan barnaamijka iyo hawladiisa aynu gudagelaynaa warkaaba waqtigeedna gaaban madaxweynuhu farxadda oo ardayda la qaybsanaya iyo wafdigiisuba inaynu inaguna muujino waalidiin iyo kasoo qaybgalayaal baynu u baahannahay aamusnaan iyo deganaanshaha aynu ku dadaalo marka ugu horreysa maadaama aynu dad islaama nahay waxaan ugu soo horreysiinayaa barnaamijkeena aan ku furanaynaa aayadaha qur-aanka kariimka oo inoo akhriyo imaamka raski jaamaca sheekh xasan تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا صلاة طرفي النهار وسلفا من الليل لذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين سبب الله خير نبغى فهمنا مش كده تصل بقولنا وقولنا محمد يا برسنا كجامعة تتم هسه على كان قول رسيني لكن انت انا برنامج كبلابا هسه على كده جناشو هي قلب
nimid waa xaflad arday ku qalin jabinayso waxaanu dhammaanteen la wadaagaynaa farxadda ardayda la qalin jabinaysa ardayda maanta ka qalin jabinaysa dibcaddii toddobaad ee jaamacadda timcadde waa madaxweynaha qaranka iyo wasiiradu waxay waqtigooda usoo horeen sidaan hore loo sheegnay inay la qaataan farxadda ardayda deganaanshaha iyo aamusnaantana waynu ku dadaalayna insha allah aan u yeero gudoomiyaha jaamacadda timcadde dr cusmaan aw yuusuf magan si uu kelmadiisa halkan nooga yimaado fadal والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أريبو أوك سفر دير مدحوينه مارتي نو سو مري وإلا يمحيه إذا قبل كلام سو مري waxaan jecelahay marka inaan soo koobo hadalka sida awoodeed waxaan jecelahay waxaan ku horeysiinayaa khudbadii qalin jabinta horeysiinayaa ardayda khudbadii qalin jabinta waa la istaagayaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن مدن المسبح عبدي حبناها قولها وسيرها حبناها قولها برلمانكا حبناها قولها ديجانكا مكا رجي الدمر بره عديد الجامعات والدين تودا معلمين تعرضيدا يدمان برتشارة كلية كسوق يبقى واحد السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا marka hore jecel dastuurka Soomaaliland waxbarashada tacliinta sare markaan arkay soo gudbinta diiwaan galiyaha guud ee jaamacadda Timcadde markaan arkay soo gudbinta dhanka guud ee jaamacadda Timcadde liis uu soo gudbiyay waxaan mudan madaxweyne maanta qiraya in ardaydan hortaada joogta maanta ay buuxiyeen shuruudihii qalin jabinta ee ay ku mutaysteen in ay qaataan ay ku mutaysteen inay qaataan dibloomooyinka iyo digriyada ay xaq u leeyihiin in la siiyo maanta laga bilaabana ay ku hawlgeli doonaan insha Allah. ardayda waad iska fadhiisanaysaa الحمد لله الله إنه سوتقلي حفلة قرحة بدن يقل جميع عدد جامعات Timcadde دفعتي تضبط وحن مرلبات إلى هاي وقوم هذا قيا إنه هرقلي ريوي كني إن بدن وإنه جميل مقضي mission impossible وحن سوتقل هاي مقضين مركز أساسا جامعات Timcadde بدن maantana alxamdulilah dufcaddii toddobaad ayaa ka qalin jebinaysa ardayda qalin jebinaysa mudan madaxweyne waxay ka kooban yihiin 9 kulliyadood tirada guud ee ardayda qalin jebinaysa waxa weeye waa 150 waana nambarkii ugu badnaa ee ka qalin jebiya jaamacadda Timcadde ilaa intii la asaasay hadallada ayaa soo koobaya raalli ahaada aniga oo maaragtay tixgelinaya safarka dheer madaxweyne noo soo galay marka waxaan jecelahay waan soo koobaya waxaan jecelahay ardayda hadda qalin jebisay inaan 2 kelmadood idhaahdo oo dardaarana waxaan idinkula dardaarmayaa marka hore inaad ilaahay ku xidhnaataan ood noqotaan wadaniyiin waalidkooda iyo dalkooda anfaca maanta laga bilaabo waxaad gelaysaan waa noloshii labaad marxaladii labaad weeye ama shaqa ayaad bilaabi doontaan insha Allah ama waxbarashada heerkeedii labaad ayaad bilaabi doontaan waxa la idinka baahan yahay inay idinka muuqato aqoonta aad barateen waa inay idinka muuqataa oo qof aqoon-yahan oo akademikana waa inay idinka muuqataa waxaad kaloo ka fogaataan 3 cudur ee waddankeena ragaadiyey ee 3duba waxay ka kacaan qaaf bay ka kacaan waa qaar iyo qurun iyo qabyaalad
qaadka waad garanaysaan qurunkuna waxa weeye waa laaluushka qabyaaladana waad garanaysaa micnihii qofku qabiilka qabyaalad marka la leeyahay waxa weeye waa very simple qofna waa qabiil laakiinse qabyaaladu waxa weeye markaad qof kale oo walaalkaayo wadanaya aad ree hebel ahaan aada uga eexato ku markaa laga yaaba inaad isku jufo dhowdiin markaasay qabyaaladu imanaysaa waxaad ka shaqaysaan danta dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina insha allah waxaad ogaataan waxa ay danta ummaddu ku jirto waa inaad garataan maadaama aad aqoon-yahan tihiin waxaad maqashaan inta badan aafada qabyaaladda oo odayaal macnihii odayaal maaragtay madaxa dhaqameedi ay leeyihiin saamigayagii reer hebel wuu naga maqan yahay wuxuuna rabaa markaa boos laga siiyo dowladda ama wasiiro ama agaasimo ilaahay baan isku dhaarshiyey taasi dadkao dhan may anfacaysaa waxa weeye danta guud ma aragteen oday dhaqameed odhanaya gobolka iyaga ceela ha loo qodo jaamacado fiican ha loo sameeyo dhaktar ha loo sameeyo taasaa ummadda oo dhan wada gaadhaysa shaqo abuur ha loo sameeyo waxa weeye laakiinse waxa weeye waa niman isku shaqaysanaya markaa taas maadaama aad iminka arday qalijibinaysa oo aqoon-yahana tihiin waa inaad fahantaan waxay dantu ku jirto danta ummadda iyo tiina reerkuba waxay ku jirtaa maxay hayday in gobolka aad ama degmada aad ka timid wax horumaroo ummadda wada gaadha loo sameeyo laakiinse anigoo wasiir layga dhigayo 5 kale oo reerkayga wasiir laga dhigo ama agaasimo laga dhigo dee reerkaygu ma korsanaya waxba dan idigu jirto dantu waxay idigu jirtaa waxa danta guud oo laga wada shaqeeyo waxa kale oo muhiima inaad fahantaan muhiimadda ay leedahay danta guud waxa weeye wadanka waxaan arkay anu suulan baan ka yimid waxa weeye haddii qof xitaa qaldamo qashin ku tuuro ku kala qashin kaga qaadaya ma ogola macnihii ummadaasi in waddankooga laga kharibo waxani waxa markaa qof waliba mas-uuliyad buu markaa qaadaya marka inaguna qofku tiisa mooye tii ummadda waxa weeye waa la isku iloobay cidda ummadda u shaqaysaana waxa weeye dhibaato badan bay kala kulmaysaa marka waxa weeye waa inaad ku dadaashaan in waxa danta guud ee laga shaqeeyo waxaan jecelahay aniga oo maaragtay mar labaad iyo mar saddexaadba madaxweynaha qaranka maaragtay ugu mahadnaqaya farxadda uu inagala soo qayb galay isagoo oo tiix gelinaya sidii ay ardayda jaamacadda Timcadde ama ardayda qaranka oo dhanba meel kastoo uu gaari karo inuu farxadda la qaybsado ayaan madaxweynaha waqtigiisa qaaliga ee uu noo horay isagana aad ugu mahadnaqaya madaxweynaha aad baad u mahadsan tahay waxaana filayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga intaasaan ku soo gabagabeynayaa aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yuusuf magan barnaamijkeeni baynu kusii soconaynaa wala uu inoo kooban yahay goor gaaban hadalkeedna gaaban waxaan iminkana kusoo dhaweynayaa mid ka mid a boorka jaamacadda Timcadde waa Sultaan Ismaaciil ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصلوات الله وسلام عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بقى مهدى ملك كوبات مرلبات وحنو مهدى مدحوينها جمهورية سومالان مدن موسى بيح عبدي يوفت قبلادن وهجامينيو إن نقل سوق يبقى حفلة قليلتها جامعة Timcadde مدن مدحوينه سودو ونقول هذا ملك كوبات waxaa kaaga mahadnaqaynaa inaad jaamacaddan oo keliya aanadii mare jaamacado hore la soo martay kuwa dambana ku socoto si aada ugala qayb gasho mooraalkoodana u dhisto ardayda da-yartaa ee jaamacadaha ka qalajabinaysa si ay loogu dhiirado ardayda kalena ay ugu daydaan waan ka mahadnaqaynaa intaa markaan ka gudbo mudana madaxweyne jaamacaddan Timcadde maanta waa jaamacad dawliya sida ka warqabto maaha jaamacad barayfada oo shakhsi leeyahay urur gaari leeyahay qabiil gaari leeyahay cid gaari leedahay waa jaamacad hoos timaada dowladda aad madaxweynaha ka tahay isla mar ahaantaana
isla qaran ahaantaana waa jaamacad community-ga reer Gabiley ay dhisteen haddana oo qaaraan iyo xoog arday kasta iyo qof kasta aanu ku dhisnay oo jaamacad asal ahaan dowladdu dhistayna may ahayn markii aanu abuurnay ee aanu anagu dhisnay waxaanu isla garanay inaan haddana dowladda ku wareejino si ay dowladdu u maamusho oo ay systemka wasaaradda u hoosto ilaa maantana waa taati jaamacadaha ka midka ah mudane madaxweyne maamulka jaamacaddu iyo boorka jaamacaddu waa dadkaa sacrifice-ka gudoomiyaha 8 sanadood shaqaynayay lacagtiisu geliya isagaa tuisura ka soo shaqeeyo geliya maayarkaa Gabiley waxbuu ka caawiya community-gaa reer Gabiley wax ka caawiya jaamacad bilow ah oo dadkeedu markay dugsiyada sare ka baxaan ay Hargeysa u guuri jireen baa reer Gabiley jaamacadaha kala tegi jireen way yareen ardayda geli jirtay siduu gudoomiyuhu sheegay 150 arday baa maanta ugu badan isbixinteedu waad garan kartaa 150 arday jaamacad intaasoo fakal ka kooban oo intaasoo macallin dhigayaan kharashka ku baxaya iyo isbixinteeda dhaqaale ahaan inta la saari karo service ama loo saari karo fee laga qaadi karana waa dareemi kartaa ardayda inaan la culaysin karin kabka dowladda ayaa wax ka kabi jiray walow sanadkan ay waxyar hoos u dhaceen iyadana codsi baan ka dhigaynaa in jaamacadaha kabka la siinayo priority-ga la siiyo kuwa soo koraya kuwa isbixinaya waxay kuwa soo koraya muddada aad joogto inay noqoto jaamacad ka mida jaamacadaha dee kabka wanaagsan helo oo kaa codsanayna iyada wixii ka dhiman ee kale baahiyaada halkan ka sheegi maayo si gaara gudoomiyaha iyo boorka iyo waad u kulmi doontaan insha allah oo ka hadli doona laakiin saxaafadda marin mayno baahideeda kale iyo waxaan kaa weydiisan intaa markaa ka gudbo waxaan halkan hambalyo ballaaran uga dirayaa ardayda jaamacadda ee sanadkan ka qalijabisay jaamacadda Timcadde waxaana lagu ducaynayaa in ilaahay waxa ay barteen ku anfaco midho dhalna ilaahay idinka keeno idinkana mid baan idin leeyahay haddii aad isku dhigteen dad wax bartay in aqoontii ay ku soo noqoto ummaddii aad u barateen iyo halkii aad u barateen iyo guud ahaan dalkii aad ka barateenba inay ku soo noqoto waa lagama maarmaan inaad meel kale la tagtaan maaha inaad dadkiina iyo dalkiina waxgelisaan si aqoontiisa u soo korodho ayaa idinkana laydinka rabo mudane madaxweyne hadalka waqtigu uu yaryahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay soo dhawow baanu ku leenahay billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آدي أدو ما سيها سلطان إسماعيل وقت قالي قال صهوري والدين تا أرددا إيا معمل كجامعات هاي مرس الشرف تقلبا آدو ما سنتين عد كستو بيشن كقالي جريتا ديسي أي نوغو سورو كشاو كقايب قادتين آدو نوغو مقنا ورفضا إيا شركة بدنا كمديين madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi golaha wasiirada ee la socda madaxda gobolka Gabiley oo barasaabka horeeyo ardayda qalin jabinaysa iyo waalidiintooda iyo baxda saxaafadda channelka ciidamada qaranka Soomaaliland dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kabadeed waxaa mahad u sugnaatay ilaahay waxaan u mahadnaqayaa maamulka ugu horeeyo Professor Magan jaamacadda Timcadde iyo dhimanka kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda juhdiga badan ay galiyeen halkan maanta taaganahay aniga iyo arday badan imaan u gaadhneen jaamacadda gobolka Gabiley markay ka fureen ay fikirka keeneen aqoon-yahano badan oo waqtigii oogii u dagaaladii iyo jaaniskii ka lumay oo aan ka mid ahay way ka faa'iidaysteen waxa kale oo ay fursad u noqotay qaaliya waalidiin fara badan oo aan anigaygani ka mid ahay oo hooyo ahay oo caruurahooda Hargeysa tagi jireen oo nagaado gobolka deganaa si gaar ah aad ugu mahadcelinayaa jaamacadda annagoo ardayda arabsay ka timaadaan ahayn waxay noo sameeyeen baabuur guryahayaga naga soo qaada jaamacadda dhigtoo nagu celisa jaamacadda Timcadde waa jaamacadaha dalka ee dawliga ah kuwa ugu horeeya ay mudan tahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan mahad kale u celinayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi oo nagala soo qayb galay aniga farxad bay ii tahay inuu qalin jabinayo inuu Muuse madaxweyne noqdo aad iyo aad farxad ma hadda iyada ardayda kale qalin jabinaysa
iyo waalidiintoodana aad baan ugu mahadnaqayaa siday uga soo qayb galeen ay faraxsan yihiin ilaahay hayna gaadhsiiyo guul waddankeena iyo barwaaqo iyo horumar waa wax lagu farxo lagu diirsado maalin walba intaasoo ardayo kala jebinaysa madaxweynaha qarankuna siyaasad cad buu maanta ka leeyahay waynu ognahay arday hore shaqo qaran gashay oo midhahoodii aynu guranayno ilaa waxbarashada nagala shaqaynaysa kuwana inuu meelayn doono wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inta saro jaamacadu ay ku wisiyihiin axmed muuse murid isaguna ugu fadhiya dad badan agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga deeqo way fadhidaa taliya ku-xigeenkii booliska janalkii ciidanka qaranka madaxda intaana gabagabadii baynu kusii dhawaanaynaa insha allahu tacaala waxaan imika u yeedhayaa madal waliba meel bay leedahay madashan aynu fadhinaa waa aqoon agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka isna soo fadhiya doctor xargeeye madashan waxaan noo fadhinaa waa aqoon ayaa xukumaa waa waxbarashada wasiirkaan kusoo dhaweynayaa si uu kelmadiisa u yidhaahdo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska cusman jaamac aadan ardayda waalidiinta madaxda kale ee madashan sharafta leh ka soo qayb gashay dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore maanta halkan waxaanu isugu nimid inaynu u dabaal degno oo ku faraxno ardayda ka qalin jebisay jaamacaddan timacadde waxaan idin leeyahay marka ugu horeysa ardayda iyo waalidiinta kusoo tacabtay iyo macallimiintii waxbaratayba aad baan nagu mahadnaqaynaa waxaanu idin leenahay hambaliyo 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 intaa markaan ka gudbo waxbarashada waxa ugu horeeya qofka in ay beddesho oo siduu ahaa sanad walba wixii u kordhaa ay maskaxdiisana ugu kordho waxaa la yidhaahdaa waxaynu maqalnaa aqoon-yahan in badan baynu maqalnaa aqoon-yahanku waa qofka wax bedelo weeyaan ee xaalka ama markaa naftiisu ay ku jirto ama ummaddiisu ay ku jirto wax ka bedelo ee wax ka hagaajiyo weeyaan kaasaa aqoon-yahan la yidhaahdaa aqoon-yahanku ma aha intaad jaamacad ka baxdo ama wax kale aada barato aanad ku camal falin ama halkii hore ee joogtay un aad ka wado ma aha aqoonta waa in wax ku beddeshaan waddankeenu wuxuu marayaa marxalad u baahan bulshada in laga bedelo siday u nooshahay siday u fekerto iyo siday wax u soo saartaba waxay tihiin dadka ardaydaasi jaamacadda wax ku baratay ee aqoontii jaamacadda leh waxaa jira hadal la yidhaahdo oo ah qofku wuxuu bartay haddii aanu ku camal falin waxba muu baran haddii waxay jaamacadda ku barateen geli weydaan oo ku dhaqmi weydaan oo wax ku bedeli weydaan aqoontiinu ma gaadhsiisna ama ma aha halkii laga fuliyey waddankana uma tihidin dadkana uma tihidin waxaan rajaynayaa in marka ugu horeysa naftiina iyo tawaalidiintiinba wax ugu tartaan aqoontaasi waddanka wax ugu tartaan waxaad tihiin in dadka jaamacadaha ka baxa waa wacyigeliyayaal weeyaan ummadda macallimiin u ah oo wax ka bedela xaalka ay ummaddu ay ku nooshahay waxaan rajaynayaa in intaa ku camal fashaan sidaasay noqotaan haddaan intaa ka wareego oon ka hadlo siyaasadda waxbarashada ee dowladdan madaxweyne muuse bixi ka yahay madaxda siyaasadda waxbarashada ee dowladdana waa caddahay waxaanu ku dadaalaa in had iyo jeer waxbarashadu hore u marto dardar cusub baa sanadahan la geliyey waa ogeydeen bugagii loo qaybiyey ardayda sanadkan waxaa kale oo la sameeyey kuliyad macallimiintu wax ku barato la doonayo diblooma iyo digriba in lagu bixiyo halkaana weeyaan aasaaska waxbarashadu waxbarashadu waxay u baahan tahay macallin wax yaqaana intii hore waynu soo kaca kufaynay iminka ay noogu horreyn doontaa in aynu helo macallimiin ka soo baxay jaamacad oo yaqaana sida wax loo baro dadka isaguna wax u barto
siyaasadda waxaa ka mid ah dowladda madaxweyne muuse biixi cabdi in hoos loo eego dadka aan karayn in iskuullada qaaliga ah ee privatka ah ee beryahan shaacbaxay aan lacagtooda bixin karayn in hoos loo eego oo la siiyo deeqda waxbarasho ee dibadaha inooga timaada sanadkan aynu ku jiro 450 qof oo dowladda Ethiopia ayna siisay oo deeq waxbarasho ah dhammaantood waxaa loo higeeyey oo la siiyey ardayda iskuullada dawliga ku jirta jaamacadaha dawliga ku jirta iyo dhammaantood loo qaybiyay oo la siiyey iyo dowladda wixii ka hagaagay taasi waa siyaasadda wasaaradda waxbarashada iyo dowladda Muuse Biixi Cabdi waxaan u rajaynaynaa mustaqbalka soo socdana in sidaa iyo si durugsan loo daryeelo dadka aan karayn lacagta faraha badan maanta iskuullada privateka waxaa lagu dhigtaa lacago aad u fara badan qaar baa $130 bishii laga bixiyaa dadkeenu inta karaysaa way yar tahay qaar baa 80 70 60 in badanba waa laga bixiyaa qofka 2 ilmo leh ama 3 leeyahay ama mid kaliya leeyahay inaanu awood u lahayn ayaa meesha nooga cadaatay sidaas aan hoos loogu soo daadejiyay in wixii deeq waxbarasho ee la helayo loo nisbeeyo oo la siiyo loo hibeeyo dadka danyarta ah ama waxa si aan karayn waxaan mar labaad la jecelahay ardaydan iyo waalidiinta ku tacabtay ee tacabka farahada gelisada guul iyo noloshooda meel wanaagsan ka gaadhaan aqoontooda kororsadaan iyo waddankooda oo ay hoos u eegaan oo ay isku dayaan in ay wax ka bedelaan mar labaad baan idin salaamayaa dhammaantiinna u mahadnaqayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدموا جامعات ويتاجنانيان ماذا كلام حلا هي الفريست ستيج في النمو القاضي وحن حاضرين يا أرضي تحبها عن علم قاعدة أرضي كوسرية كلية public health قبلي كلية أرضي كوسرية وعوالة علي عمر عوالة عوالة إسلام كان كلية سوق سرية بلاد أو كشري وحلا بدونسين يا كوم كجامعة سجال ككلية أقل جميع وأرض كوجود العصرية هنا كوا جامعة دولة مرحبا أرض ككلية أرض كلا سلو كلا سرية أنا حاضرين أرض كلا حاضرين يو وقت أرض ardayda dadka waalidiinta wixii ay sawir la geliyaan iyo wixii kala sahal waqti ugu helaan khudbada dibadda wixii hadhow la siinayo wixii wax lagu xireeyo wixii dabaaldeg oo dhan waa dibadda ardayga saddexaad waxa weeyaan ardayga kale waxa weeyaan Mustafa Nuux Ali waa ICT kuliyadda ICT نعيمة أحمد محمود وبابليك هيلث توجو تالي كم بس توجو تالي بابليك هيلث حسن عبد الله شيخ داوود حسن سقال كي كل أي مكان كرسيو ما يركب حقبتك وما محمد أمين عمر
دينك وكلية بدن جامعة تمعدة waxaa kaloo isna awaar ku doosinaynaa bilad ardaygii sameeyey barnaamijkii ugu horeeyay gobolka ka hirgala dooran barnaamijkiisa imika waxaa ku shaqeeya Afrika oo dhan waa barnaamijka ay Afrika qaadatay ardayga sameeyey حاجة سيرك حاجة سيرك waxaa kaalin muuqda martida waan fasaxaynaa madaxweynaha iyo martida la socota ardayda kale iyo wixii la siinayay hambalyada jaamacadda warahmatullaahi wabarakaatuh ardayda kulliyadda public healthka waxaa la siinayaa warqadii congratulationka milbil ha usoo kacaan public health si yaro nidaam ha usoo socdaan ardayda public health soo geliyaata ardayda public healthka milbil ha usoo kacaan ardayda public health oo keliya ardayga kale way fadhiyaysaa كل كلية بنية أرض وسعدان أرض أساس وسعدان markaan calankaara guurta sugnee kunidaysu taagnayn kunayba taladii garanuu ku shiihantinee dadyow gabigiin gacmaha isqabsada dadyow gabigiin gacmaha isqabsada markaan calankaara guud ka sugnee kunidaysu taagnayn kunayba taladii garanuu ku shiihantinee dadyow gabigiin gacmaha isqabsada dadyow gabigiin gacmaha isqabsada allow ku gargaar kayga nabato dadkana garasiilibiyo gobanimo dadkana garasiilibiyo gobanimo allow ku gargaar kayga nabato dadkana garasiilibiyo gobanimo dadkana garasiilibiyo gobanimo haddaan loo gu'in godkana loo gelin haddaan kuman geesi u mudan geerida haddaan gobanimo guntiga loo xidhaa miyaan guralayn midhaha soo go'ay miyaan guralayn midhaha soo go'ay haddaan loo gu'in godkana loo gelin haddaan kuman geesi u mudan geerida haddaan gobanimo guntiga loo xidhaa miyaan guralayn midhaha soo go'ay miyaan guralayn midhaha soo go'ay allow ku gargaar kayga nabado dadkana garasiilibiyo gobanimo dadkana garasiilibiyo gobanimo allow ku gargaar kayga nabado dadkana garasiilibiyo gobanimo dadkana garasiilibiyo gobanimo gafiyo uma
haysta ruux godabo washayra xumaan kuman kuntano baan ku ilaaway geeda baxshee godkaan degiba shaxdii qalbiyee godkaan degayba shaxdii qalbiyee قفية وما هيستروح قضبو والشير حمانكو من قتنو بانكو إلا وكيدا بحشيه godkaan degiba shaxdii qalbiyee godkaan degayba shaxdii qalbiyee يا الله كوكركار الله كوكركار الله كيغا نبضو dadkana garasiili biyo gobanimo dadkana garasiili biyo gobanimo يا الله كوكركار كيغا نبضو dadkana garasiili biyo gobanimo dadkana garasiili biyo gobanimo وشاد الضبي وتاي قبشو وانا قاد وقام بينيو إني قنبيها نسور كنت ديه kahay garko ka joogoyaha kahay garko ka joogoyaha bushaadu dadbay u tahay gubasho wanaagaad gaadhay u gambinayo inay dambiyahaan u soo guntadeen kahay garko ka joogoyaha kahay garko ka joogoyaha hallow ku gargaar kayga nabato dadkana garasiili biyo gobanimo dadkana garasiili biyo gobanimo hallow ku gargaar kayga nabato dadkana garasiili biyo gobanimo dadkana garasiili biyo gobanimo horay god madow gundaha dhigato talada gurcali gunaad ka tagtee hadduu galabtaba xoryahaygaygi wale magabe kulow mahada wale magabe kulow mahada horay god madow gundaha dhigato talada gurcali gunaad ka tagtee hadduu galabtaba xoryahaygaygi wale magabe kulow mahada wale magabe kulow mahada allow ku gargaar kayga nabato